kulankan ballaaran oo ahaa mid lagaga hadlayay horumarinta dhalinyarada magaalada Ceerigaabo ayaa ku qabsoomay Hotel Sanaag ee magaalada Ceerigaabo. kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen guddiga dhalinyarada ee horumarinta nabadgelyada iyo ururka gurmad ee koonfurta gobolka Sanaag ayaa inta badan diiradda lagu saarayay arrimaha nabadgelyada iyo horumarinta magaalada Ceerigaabo. waxaana ay sidoo kale sheegeen inay inta badan ka shaqeyn doonaan horumarka magaalada dhinacyada caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo deegaanka. waxaana ay sidoo kale wax laga xumaado ku tilmaameen hadalkii dhawaan ka soo yeedhay dowladda Ingiriiska, iyagoo sidoo kalena soo dhaweeyay xalintii iyo sidii loo xaliyay khilaafkii muranka baan ee ka dhex taagnaa golaha deegaanka ee degmada Ceelaf Weyn. waxaana ay sidoo kale u baaqeen dadweynaha reer Saylac inay inta badan ka shaqeeyaan horumarka deegaankooda, isla markaana ay soo afjaraan murankii dhaliyay golihii deegaanka ee dhawaan laga doortay magaaladaasi. waxa ugu horreynba halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddida horumarinta dhalinyarada ee gobolka Sanaag Maxamed Saalax Warsame iyo Siciid Axmed Tamriisi iyo Maxamed Cabdullaahi Xaaji Cabdalle oo isagu ku hadlayay xiriiriyaha ururka koonfurta gobolka Sanaag ee Gurmad iyo Najma Ibrahim Cabdikariin ayaa dhammaantoodba si isku mid ah uga hadlay looga howlgalo nabadgelyada, ciidanka booliiska si weyn loo tayeeyo, iyo waliba isla askariga laftiisa oo qiyam iyo ujeedadiisa iyo hadafkiisa si weyn loo taageero. baaqa labaad wuxuu ku wajahan yahay isaguna waxa weeyaan madax dhaqameedka jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan madax dhaqameedka gobolka Sanaag, inay dhammaan xalliyaan aanooyinka dhalinyaradu uga yaacayaan magaalada Ceerigaabo, guud ahaan gobolka Sanaag uga tagayaan, iyo in reer walba oo wadaag leh ay guud ahaanba ay xalliyaan khilaafka dhexdooda ah, isla markaana ay ka taliyaan aayaha shacbigooda. Ceerigaabo labadayadan team ayaa waxaan mahadsanay ku midownay horumarka gobolka Sanaag iyo wax ka qabadka xagga nabadgelyada, deegaanka iyo waliba horumarka oo dhan. marka waxaan aad iyo aad ban arinta ugu faraxsanahay. UK government doesn't know Somaliland internal affairs, so we are staying here. So UK if we are Somaliland generation, we will never stop our effort that we are searching for international recognition. So marka dowladda Britain asaasan leenahay arfiskaygu wuxuu yahay waynu aragnay qabyaalad oo yahaniin baa tihiin afar beelood waynu aragnay afarta adin bayna jartay meesha aan dhigtayna waa hayna consequence-gii maanta ama cawaaqibkii waa hayna waan sameeynaa hadii Ilaahay yiraahdo waxa ayaan darro ah oo aad iyo aad u xun in dhalinyaro fara badan oo gobolka Sanaag ka tirsan ay jaamacado ka soo bixiyaan gidaarada qaad ku cunayaan sigaar afadhiyaan. taasina waxa weeye ayaan darrada u weyn ee gobolka Sanaag haysata oo danta Sanaag oo dhan ka shaqeynaya meel kasta jecel inuu u galo nabadda iyo horumarka Sanaag. anagu waxaanu leenahay waxyaabo badan baan u soo asaasanay, nabadda ka mid tahay, waxbarashada ka mid tahay, caafimaadku ka mid yahay, laakiin tan halka u fadhina waa nabadda. waa tan iyo markii ugu horeysay ee ururka dhalinyarada ee koonfurta gobolka Sanaag iyo guddiga nabadgelyada ee iskood isku xilqaamay kulan ballaaran oo ku falanqeynayaan inta badan horumarka gobolkooda ay ku qabtaan magaalada Ceerigaabo. عبد الناصر خالد سعيد ورركا Somali Channel magaalada Ceerigaabo.